ninkii maxamed saalax ahaa bahashii baa daba taagan ya habeenkuna waa la reebay wadankiiso baroon naclabuug ya argeedka naclabuugsana ani geedka waa arkay hadda maxamed saalax baroon wuxuu ku dhigo mataqaan wuxuu Messi ku hadda kor ku dhigo waa macnay Messi saan loo waalay mondiyaalka dunida laga qaaday laba jeer America xiriir baa ka qaadayeen jili ka qaadayeen وانا markii ciyaartu goor ay gaareysay waana ugu Facebook ku soo qorxan Ribanonigan ma yaqaano maxamed saalax kulankii hore goor looga badiyay caaw isaga habadiyo Banoniga ma yaqaano geedkan barasha kugu laaban bas leedahay Banoniga ee anaga kulankii hore laga badiyay marka macnaa anaga badinayna bas leedahana Chelsea ama Stakyeeled wax ka si Manchester United macnaa markaana waxaynina waa loogu jiidi waa laga qaaday geedkii macnaa imikuna sad markii ciyaartu waxay ku dhamaatay gool iyo eber sagaashka daqiiqo ilaa ka sartaamkii hal eber ku dhamaatay Afrika mugta hal dhibi ku qaba macnaa goolka waa kiilay macnaa fardis malahan halkii gool bilowgii baa laga dhaliyay wadanka Masaarida oo Senegal markay ku laabteen halkii gool baa laga dhaliyay bilowgii ciyaarta halka gool baa lagu dhimay ka sartaan baa lagu daray waxa lagu iska dhali waayay baldi baashu gaartay markay baashu baldi u taagneed waxaan reeyay ya geedan waxa weeyaan baashu hore marka la gaartay laakiin waxaan ku daray hadalkayga ya Banoniga ma yaqaano maxamed saalax kulankii hore koobka Afrika laga qaaday kii hore looga badiyay markaan ha ku badiri hore Banoniga ma yaqaan man kugu soo qoray meesha ya oo yaani Banoniga ma yaqaan waxaas waxaan ku risaga loogu dari karaa waan loogu daray geedkan calabuug waa geedkan waa isugu faanfaan ha isugu bootayn iska jeer wali ninkii maani aha iyo ninkii mandi aha ninkan iska daba kacayaan marka saalax marka uu ooyay rigoryaal baa looga badiyay kulankii rigoryaal baa looga badiyay bilowgiina waxa ba jirtaba in fiiri hatta Senegal rigoraha ugu qasaarisay Koulibaly birta garaacay kadib aw bas maxamed kiya la wacaya kabiirka tii hore waxa lagu eedeeyay maxamed saalax wariyaha maxad rigoraha dambe u sugeysay adiga wadanka ka reebay ciyaar adduunka waan ya adiga wadankaaga ciyaar Afrika qaadbay maadaama rigoraha ugu dambe sugeysay yani ciyaartooygu weyn waxay jecel in rigoraha go'aaminayo guush lagu gaarayo ee ugu dhaliyaan laakiin kuwa soo hormaray laakiin maxamed saalax baashi kor buu wada mariyo oo waa dheereeyay shoot habeen yani sawaxan buu lahaa garoonku yaa habeenkaas cabsiban miiran bay yaheedo maxamedkii kor haduu mari maxaan ku soo kuwa kale Masaarida waa laga wada badbaadiyay wax badan oo ilaa laba penalty labada gool hay badbaadiyeen ilaa mar dambe maanu soo qatimay rigooruhu una dhaliyay kii guusha sidaas baana saalax marka lagu garaacay marka jili ba saasay Argentina u yeeshay macnaa jili Argentina inta lisla yimaadi laga qaaday ahad lisla yimaadi ahad laga qaaday markaasaan geedkan saasta u fiin waxaan geedkan ma yaqaano cida maaluuda laga badiyay markaan iyaga habadiya ma yaqaano Argentina ku soo Argentina soo arkay ya jili ya marka waa kayo 6 February Sadio Mane ayaa rigoryaal ayaa ku garaacay wadankiisa Senegal ku garaacay Masar oo Cup Africa qaaday imikuna la gulaatay World Cup kii uu ka reebayo wadankiisa uu soo saaray ninkii Mandi baanan iyo balaay noqday ayaan taano ya wariya Mandi penalty kuma fiicna bal isdhahayo wariya keebo wala haystaa markaan ninka meel kasta ku fiicna weeyaan badii penalty noqotay haday noqoto badbaadinta kale goolku Chelsea gacan badbaaday ku jirtaayo waligeed ba gool haye Faransa ka keenan saam uu fiicnaan jirayo jeeg basida buu ahaa marka Eduardo Waniki marka ka galayo mid kale laakiin waxa ciyaarta yaab ka lahayd bilow ciyaarta ila dhamaad Masaarida waxa Leicester ba nah looga hayay bal fiirad maxamed saalax markuu rigooruhu tuuri rabo ya markuu rigooruhu intuu san rigooruhu tuurin ya wada Leicester wajigiisa laga dhigay waa la bedelay karar wajigiisa waa la bedelay ya Afrika dilada waa laga joojiyay waxaan hal joojiyay hatta sheekadheer bay noqon lahayd war ciyaarta markii bilaabanaysa Faribiga 90 wadiya ilaa waa lagu dhameeyay iyagoo Leicester wajigiisa looga hayo ya ومركي يعني عيارتوي مساري يعني Senegal waxa sameeyay taageerashadu markii ciyaartooy masaari rigooruhu tuur raba ama kubad u haysto waa lagu aadinayay markii rigooro ay tuur rabaan Mane iyo Senegal ay tuur rabaan goolhayaha ayaa dhax looga aadinayay bahalka markii masaarida tuuran iyaga looga aadinayay marka waxa weeyaan way la shaqeeyaan guushan qayb bay ka qaateen Senegal taageerashadu maxay yeelay bilow dhamaad hawl kale ma qabay lahayn nimankan wajiga Leicester kaga hayeen marka ciyaartooy Egypt waxa lagu qasbay xariniyo waxaan wax si la yeelay ma lahayn niyo ciyaartaan ku ciyaara liir macnaa sid kala la yeelay malaha dadkan waa Afrika Banoniga jacburwa ya Afrika Banoniga jacburwa ya sil raba loo ciyaarto loo jacburuna loo dhameeyna ka war Leicester hal ku bilaabata ku dhamaato wax waa laga qaban kari waayay ya saasa wajigi maxamed saalax loo bedelayo waxaan wax ma ka qaban karnaa liir macnaa sidina ku ciyaara marka saalax sida World Cup ka looga reebay jabahirtu Senegal tay weelay la ciyaareen ragooda way la ciyaareen maxamed saalax waayiisa laba jeer buu ciyaaray World Cup ka dunida labada jeer uu ciyaarina Ruushna gool uu ka dhaliyay Saudi Arabia gool uu ka dhaliyay nin khatar buu ku ahaa koob adduunka nin ku macaabu ahaa ya imika 4 sano jir uu noqonaya World Cup ka dhici doona 2 marka wax weeyaan xaalkiisu way istil uu ciyaari karaa laakiin 4 sano jir buu noqon doona World Cup ka xiga
iyadoo Mane iminku uu Salah ku leeyahay 2 gool Sadio Mane 2 Mohamed Salah eber yani labadii jeerba labada nu ciyaareen Mohamed Salah baa la reebayay oo laga badinayay la garaacayay iyadoo Sadio Mane uu noqday ninka labada jeerba dhalinayay goolasha guusha ee wadankiisu ku garaacay wadanka Salah tii hore rigooradii guusha isaga dhaliyay koobka ay ku qaadeen Afrika tan isaga ku soo saaray World Cup ko labadii barigoor isaga ayaa sameeyay mid kale Mane iyo Mane way wada shaqeeyaan mid kale masaaridu ciyaartoy badan ma haystaanba ya tarfar fara ku tiris ba Europe ka ciyaar mooyaane kuwaas wada laacibin meelaha kala duwan ka ciyaarayaan bal fiirata Mane markaad aragto mid kale Salah si fiican uma ciyaari karo sababtoo ah markuu Liverpool ciyaari aad buu fiican yahay maxay rag la shaqeynaya joogo meesha tano meesha bari ma soo gaarayba Mane iyo Mane bal fiiri finalkii Africa Cup of Nation Mane rigooradu badbaadiyay Mane rigooraha guusha u dhaliyay kii World Cup ka habeenka Mane rigooru badbaadiyay Mane wuxuu dhaliyay goolkii guusha Mane marka labadii jeerba isaga ayaa rigooraha guusha dhaliyay Mane wuxuu ahaa ninka badbaadinay labada rigooraba marka kii hore iyo kanba marka Mohamed Salah World Cup ma ka qayb gali doono odagu aan ooye albaabkii xiriir ku jiraayo Mohamed Salah Benoni wuxuu marsiinaya ciqaabtu marsiyay ninkii gaabnaayay Messi saano kale Benoni ugu ciilay World Cup la aaday waa laga qaaday America la soo aaday waa laga qaaday waa la tagay hadana waa laga qaaday yahoo ba ka dhacdo hatta waa fariisanaa wuu micnaa Benoni sidoo ma u ciilay Messi ayuu u ciilay ninka kan ilaa mar dambe jamaahirta adduunka hatta ay yiraahdeen hatta mucaaradka yiraahdeen war waa inuu koobka adduunka Messi qaada baa liri America hadda Brazil imaadeen kay hor imaanayeen ya waxay yiraahdeen adduunka dhawr Messi hal ugu sharfa halkan koob hal ugu cimaamado sidii uu ugu Messi ku qaadayo waa ku dabaaldegay mooyaane laakiin sida hadda Mohamed loo ciilay ba Messi loo soo ciilay ilaa mar dambe maradu cishtayo marka Mohamed Salah aan ooye halka xiriir ku jira marka waa kayo Benoni waa kaas ma yaqaan marka anaga kulankan laga badiyay kan dambe badinayna ma jirto hadda erayga waxaan u leeyahay mataqana mar dhow waxa isla ciyaar rabo Man City iyo waxa isla ciyaar rabo Liverpool wali laba ciyaar bay isla ciyaari doonaan horyaalka mar ah iyo FA Cup ko mar ah marka qaar waxay dhigi doonaan kii laga baday wuxuu dhigi doonaa maya micnaha FA Cup micnaha horyaal waayay tuu dhahay micnaha hadda wax badan aan dhimay tuu dhahayo FA Cup ko lagu dari karaa qof marka Benoni waa lagu dari karaa Benoni ma yaqaano wargeedka Ariya lagu shubanayo waa wax gadaal hor loo turtuuro ma garanayo waxaan u cimaamad ninka Messi waa u cimaamad ma yaqaano warka Mohamed Salah waa yahay ko isiin ma yaqaan geedkan warka Manuel hor lagu badi ma yaqaan ugu daray waa ka arkaysa